wiilkii dhalinyarada ahaa ee la kaxaystay oo aan warbixin idinkaga hayno. niyo hadda isbitaalkii aan joogaa kor xanuun lafa xanuun waxaa la yidhi baterigaa kaa maxaaday hadda ninka waxa uu ii sheegay ansalaatada iyo waxaas inaan cuno laakiin hadda isbuuca soo socda inaan baxaa la rajeynooyaa. nin dilay xaaskiisii kadib markii uu soo wacay taleefankeeda 7 jeer oo ay ka qaban weysay taleefanka. qof dumar ah oo laga wareysanaya arrimaha Somaliland. maxay ku dhalbaxay maxay ku dhalbaxay eedo ninkii rabay in uu calanka bedelo oo hadda madaxweynenimo isku soo sharaxay. wiil dilay jaceelkii Julio iyo Romeo oo xabsiga la jiifiyay. wiilkan ayaa damacsanaa inay saaxiibtiisa isjeclaayeen brank uu ku sameeyay kaasoo ah inuu iskaga dhigo inuu sun cabay. laakiin booliska gurceel ayaa xabsiga u taxaaway. muranka iyo isqabqabsiga da'da oo baraha bulshada aad ugu soo badanaya maalmahan. ilaahaygi maxamed abuurtan ku dhaartay caasha inay dilatay 98 waxaan arintaas waraysi kala yeelnay khabiir weyn Cabdi oo iminka qadka si toos ah ugu jira. waxa way saaxiibkeygii oo arimahan waxa way nin khibrad u lahaa ay 10 sano jaamacad ka dhigay. horta Cabdi waa imaan kartaa arimahan oo kale oo yani in iska qabsi yimaado oo dadkii iska qabsadaan xataa waalidkii qaarkiisa isaga dadka iska qabsan karo laakiin arimahan oo kale markay dhacdo yani go'aanka ugu dambeeya qofka iska la waa maamadii waa sababtoo waxaan way ogtahay 9 bilna caloosha uu soo yeesay ku sabay kuna sariyo ku sugay ku soo samraho farxadii waan kugu sameeyay halka makasiyo intaas waxay nooga eg warka aan laga soo deyn TV-ga oo aan idin akhrinay intaan kulanti dambe ku kulmeen waxa idin leenahay